Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa sheegay in intii uu xilka gudoomiyaha gobolka hayay ciidamada sirdoonka ay gacanta ku dhigeen agaasimo ka tirsan gobolka Banaadir oo isqarxin damacsanaa. Duqa Muqdisho oo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika la hadlayay ayaa sheegay in qaraxii gobolka Banaadir ee uu ku dhintay duqii hore gudoomiyayaal degmo iyo 7 agaasimo uu fuliyay agaasimo ka tirsan gobolka Banaadir. Cumar Finish ma uusan sheegin agaasimaha ay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen magaciisii xilligii la qabtay iyo waqtigii la doonayay in qaraxaasi la fuliyo, balse waxa uu sheegay in hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay ka hortageen khatar kaloo la mid ah tii ka dhacday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee lagu dilay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare ee maamulka gobolka Banaadir. Cumar Finish ayaana sheegay in agaasimaha la xiray uu qirtay inuu damacsanaa inuu isqarxiyo hay'adaha ammaankana ay gacanta ku hayaan. Arrimaha xirnaanshaha wadooyinka ee gobolka Banaadir oo wax laga weydiiyay waxa uu ku jawaabay in xirnaanshaha wadooyinka aysan rabitaankiisii ku xirneen ee ay ku xiran yihiin rabitaanka madaxda sare ee dalka. Waxa uuna sheegay in madaxda ay hal hees ka dhigteen intii la dhammaan lahaa hala dhibtooda, taasoo ay kala jeedaan in jidadka xirnaadaan intii qaraxyo lagu dhammaan lahaa.